abaabulka mooshinka dhana madaxweynaha Hirshabelle iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa ka socotay magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar waxaan warbixinta warkan isha ku hayay wariyeenka Xasan Kaahiye. Wararkan uu ka helayno magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne ayaa waxa ay tilmaamayaan in xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle oo ku kala sugan magaalooyinkaasi ay qorsheynayaan mooshin ka dhana madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. xubnahan ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen in gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre oo ku sugan Beledweyne baarlamaanka Hirshabelle uu kala diray isagoo baal maray sida hadalka ay u dhigeen dastuurka dowlad goboleedka ee Hirshabelle ila ku dhowdhow gudoonka baarlamaanka Hirshabelle oo qaybtood ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa waxay inoo xaqiijiyeen inay jiraan in xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle mooshin ay ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre balse aanay jirin mooshin laga keenay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. Sheekh Cismaan Barre iyo Maxamed Cabdi Waare ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay ku sugnaayeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halka oo ay ka aloosaneed shaqaaqa u dhaxaysay gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo xubno kale oo uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle balse markii dambe lagu guuleystay in la soo afjaro kala aragti duwanaashihii siyaasadeed ee u dhaxeeyay xubno ka wada tirsanaa dowlad goboleedka Hirshabelle.